السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملك السوق وقتان كسر دوادا ورك كلام نمو التلفزيون جيم إن وحد اللي حسين دونتا أنا جوا إسرائيل هبي قد بدر كود دور كرنا وح كمدا وح مجالدا تجاه اللي جسوا جبجبيه قيمين تاور بحنتا سند كه لبدا كل يتدبي تبان كترس تاريخية كإثيوبيا هي قرشياشة لبدا كل يتبني سديت ترس تاريخية كإثيوبيا kooxa kala duwan oo kamid ah barnaamijka tabarucaadka bilaha xagaaga ee heer qaran ayaa gaaray deegaanka Soomaalida. daawadayaal intaas waxay hayeen qodobada warka ugu door corona haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. waxaa magaalada Jigjiga lagu soo gabagabeeyay qiimeynta warbixinta waxqabadka sanad miisaaniyadeedkii dhamaaday ee 2017 iyo qorshayaasha sanadka cusub ee 2018 tirsi taariikheedka Itoobiya. Faafahinta warkaasina aan hore ugu soconno. waxaa magaalada Jigjiga lagu soo gabagabeeyay qiimeynta warbixinta waxqabadka sanad miisaaniyadeedka 2017 tirsi taariikheedka Itoobiya iyo dhaadhicinta qorshayaasha sanadka cusub ee 2018 tirsi taariikheedka Itoobiya ee 17 gobol iyo 6 maamul magaalo ee deegaanka Soomaalida. kulankan oo socday 4 maalmood ee ugu dambeysay isla markaana maanta la soo gaaray gabagabadii waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga barwaaqo ee deegaanka oo ay ugu horeeyaan madaxa xafiiska xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida injineer Maxamed Shaale. shirka qiimeynta warbixinta waxqabadka sanad miisaaniyadeedka 2017 tirsi taariikheedka Itoobiya iyo dhaadhicinta qorshayaasha sanadka cusub ee 2018 tirsi taariikheedka Itoobiya ayaa ahaa mid lagu eegayay guulihii la soo hiyay sanadkii hore iyada oo la sii xoojin doono dadaaladaasi. caqabadihii la kulmay sanadkaasi si loo soxo galdalooyinkii jiray iyo dardalgelinta geedi socodka shaqo ee sanadka cusub si loo gaadho yoolalka xisbiga. kulankan ayaa sidoo kale lagu lafaguray qaab dhaadhicinta qorshayaasha iyo awaamirta sanadka cusub ee 2018 tirsi taariikheedka Itoobiya ee xisbiga barwaaqo si loo xoojiyo geedi socodka iyo hanaanka shaqeeda ee laamaha xisbiga iyada oo laga mara dhalanayo qorshayaasha horumarineed ee deegaanka. kooxa kala duwan oo qayb ka ah barnaamijka tabarucaadka bilaha xagaaga heer qaran oo gaaray deegaanka Soomaalida. faafahinta warkaasina ayna hore ugu soconno. kooxa kala duwan oo qayb ka ah barnaamijka tabarucaadka bilaha xagaaga heer qaran oo soo gaaray deegaanka Soomaalida mas'uuliyiinta heer deegaan iyo maamulka iyo qaybaha kala duwan ee shacabka degmada Shabeelle ayaa kooxaani ka qayb qaadanaya barnaamijka tabarucaadka ee si guud dalka iyo deegaanka uga socda ku soo dhaweeyay degmada Shabeelle. dhalinyaradani oo socdaalkooda tabarucaadka ku soo maray qaybo kamid ah deegaanka dalka ayaa ugu dambeyn soo gabagabeeyay deegaanka Soomaalida iyagoo maalmahan soo socdana deegaanka ka fulin doona shaqooyinka tabarucaadka oo ay kamid yihiin dhirbeerista dhiig shubis iyo hawlo badan oo kale. wasiirka xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Mahdi ayaa sheegay in hawlahan tabarucaadka bilaha xagaaga oo si habsami leh uga socdo guud ahaan dalka iyo deegaanka dhalinyaraduna ay kaalin muhiim ah ka qaadanayso. komishinka asluubta dawlad deegaanka Soomaalida ayaa daafuray xarun loogu talagalay xog ururinta maxaabiista deegaanka. faafahinta warkaasina aan hore ugu soconno. komishinka asluubta dawlad deegaanka Soomaalida ayaa daafuray xarun loogu talagalay xog ururinta maxaabiista deegaanka. xaruntan ayaa noqon doonta mid ururisa isla markaana kaydisa xogta maxaabiista waana nidaam la jaan qaadaya tiknoolajiyada casriga ah waafaqsanna xeerka casriga ee xog ururinta dalka wuxuuna bedelayaa nidaamkii hore ee ahaa waraaqaha. daahfurka xaruntan ayaa waxaa goobjoog u ahaa mas'uuliyiinta komishinka asluubta federaalka iyo deegaanka Soomaalida mas'uuliyiinta xafiiska ilaalinta deegaanka xafiiska cadaaladda iyo xafiiska ururinta iyo tiknoolajiyada deegaanka Soomaalida. xafladda xadhka jarka kadib mas'uuliyiinta ayaa dhirbeeris ku sameeyay goobta laga dhisay xaruntan.
daawadeel waxaa si toos ah ula socoteen warka galabnimo ee telefishinka JMN waxaad ila socodsiinaysay anigoo ah Isla Ibrahim Aadan Isra Habi inta warkan warka xig kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh